magacaygu waa Cabdikariim Sheekh Axmed Xasan ku nool gobolka Mudug degmada Gaalkacyo waxaan rabaa inaan sheego waxtarka iyo ahamiyadda Hormuud ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed Hormuud waxaan u aragnaa inay tahay shirkad weyn oo Soomaali ay shirkad ku tahay wada leedahay waxtarka ay leedahay isgaarsiinta Soomaaliya oo adduunka meelo badan oo kamid ah ay kaga horeyso bay kow ka tahay miyi iyo magaalo meel kasta qofku joogo asagoo meesha uu rabo la hadli karayo Mareykan ilmihiisa oo joogay qaraabadiisa joogto iyo cid uu baahi u qabo baahida loo qabaay haday tahay nabad iyo haday tahay dhaqaale iyo haday tahay horumar nooc kasta Hormuud saameyn bay ku leedahay waxay u tahay Soomaaliya bangi lacageed waxay u tahay adeegii lacagta oo maantay maraysa meeshii lacagta Soomaalida markii la waayay in dadku ay wax ku kala iibsadaan lacagtii qadaadiicda ahayd halka shilin iyo nus iyo laga isticmaali jiray EFC inta loogu furfuray $100 iyo malaayiin dollar iyo 1 senti qof walba baahida uu qabo ka isticmaalay dadkii oo shaqo la'aan Soomaaliya ay ka jirto shaqo abuur loo sameeyay doorka shirkadda xilliga abaaraha haddee group dhan oo u qaybsan dadka Soomaaliyeed abaarta kaliya ma ahane meesha colaadi ka dhacdo meesha abaar ka dhacdo meesha daad ka dhaco hay'ad samafal oo Hormuud u qaabilsan ma jirto ugu mahad celinayna ajar badan Allah ka siiyo in la sii kordhiyo meelaha ay gaarin la gaarsiiyana loo baahan yahay waxa la oran karaa shirkaddu Soomaaliya burburkii ay gashay baahida looga bixi lahaa koob ay maanta qaadan lahayd